السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورن ولا لذا كل شيء هدي قرشيان ديل كذا هدي يكون ذا كورن عيل دير صوبت يكون ذا يانا وجعلك حتى أفكا أبها وقوة كورن قفكي كواد جرجار بكور في ذيو هدي أكو كتكور كور قفي كوجتي dad kala taagatay oo gurigiisa ku marti sooray oo gurigiisa ku geeyay oo istiyaal ilaahay markaa maad nool heli kartaa haduu asaga xabsi ku galiyo kor nool inta la iga harjada kala haan lahayd maxaas ilaa xabsiga qofku ugu soo booqanaysa malahan qofka warqabta malahan qof aad ka maqan tahay malahan ileen kuwi kula dhasho dhiiga wadaagteen waa kuwi ku dilay intii inta la iga nolosha kala haan lahayd macnaha maxaa ku fakirid maxaas dhiilad alla ilaahay waxa laga yaabaa waxa ugu weyn hamigaada dhan إن أو هم لها حبسي جنب بس ده همر أقبحه هم جد وين بس هم لها ريابة هل مرحتها مو فكر له إن عاد وزير نقط هذا وزير يا واو وزير يبغى حنا نقط مو فكر له مركي حبسي أي حبسي مركي لوجي كورن دتكي حبسي فلقة لحدي إكوي ديستان عاونات أو نرشوا يقصص ما حسنا له مسين له مش أودي له نبي يوسف عليه السلام قصديس waxaan ka baranaynaa in si walbo daruufaha ay u adag yihiin in aan isdiibin waxaan kaloo ka baranaynaa si kasto oo albaabada u xirxirmaan in aanay isbedelin sababtoo ah nabi yuusuf markii loo soo galay ee la yiri labada nimood waxay ku dhaheen waxaan ku arkay inaad tahay qof wanaagsan ismu bedelin si kasto daruufaha ay nagu adag yihiin وإن أنا إسبدل سميني ولي إسبدل كاس أو حن معناه إن أنا إسبدلين إن إلهي كفوجاني إن سيدا أو أركينه مستقبل كسيدا أو أركينه إن أوصل نقول إن كوفيد بدو إن إحرني وحاجته وحلا كوفيد بدو بوكا تكرر وحنك آخر يلا هايو بقى يسمح سوسة لكن وحكى هذا وحاجته إنه لح فكرة دوت مرة كقار ما عرفت أنا قوس ما شعرت بأنا قوسين اسمعت وحولها قراءة وحولها هاي قراءة بيعيس بوق منه محسوس لكن ما حسوسته حكتي يا رد أكو قرنت وحولها هاي بوق هالله فوها صفيع محسوس هالدار إنه هذا عملنا يعني وحولها هاي مرة كقراءة كيف كريس قوستنا وحكوا حرن كوفيد مدو مرة أكو معناها ما كان فكري سيدا وحاحرة كوفيد فكر كقيبته كوفيد مدو أكو حرن وليه مرة كوفيد مدو مو سحرانين sidoo kale nabi yuusuf waxaan ka baranaynaa markii uu labadii xabsiga la gashay wuxuu guday danahooda markuu danahooda u guday wuxuu ku dhahay markaa tagtid iga ag xus boqorkaada ninkii iska iloobay kadib markuu nabi yuusuf boqor noqday muxuu sameeyay walaaladii kama argudan sidoo kale ma uusan xumeyn xaaskii qabri gelisay xabsiga gelisay waxaas dhan marka waxaan ka baranaynaa nabi yuusuf 10 weyn buu nasiiyay koow in waxaan ka baranaynaa rajada si walba albaabada mar walba nolosha albaabada ay soo xirxiraan albaab walba markuu soo xiro rajo walba aan lahayn ay dunto waa markaas markii ugu dhowdahay albaabkii ugu weynaa ee sugay noloshan inuu la furmo waxaan kaloo ka baranaynaa in aanan isbedelin oo waliba isbedel dhanka xumaanta ilaan qalafsanaanin in sidoo kale aan dadka ku adkaanin mar walba markuu boqorka noqdana waxa la dhahay waxa ku arkay inaad tahay qof wanaagsan markuu xaalad walba adkada ku jirna waxa la dhahay waxa ku arkay inaad tahay qof wanaagsan macna mar walba ina wanaagsanaan markuu walaaladiis oo la kulmay uu karaameeyay xataa markii ay ka caleen oo ka shalaayeen wixii sameeyeen wuxuu dhahay maanta wax calaan dushiina masaaran marka in dhaqan wanaaga iyo wax walba casharo weyn oo nasiin nabi yuusuf alayhi salaam عشركاس أنا كبر إن قصوين كنا رشينا إن أن يرجل إنك خادم السلام عليكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم نودينا